kulan wacan wanaagsan daawadeel halkan waa janalka ifka media ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka qodobada aan soo qaadan doono waxa kamid ah maamulka Puntland iyo Jubbaland ayaa markale sharti adag ku xiray ka qaybgalka shirku iclaan madaxweyne Farmaajo maxay tahay sababta markale Jubbaland iyo Puntland ay u qaadaceen inay ka qaybgalaan shirka lagu hadlay arrimaha doorashooyinka Marunba in Puntland iyo Jubbaland ay ka baqayaan in ay qabato madaxtooyada Soomaaliya qodobada kale waxaa kamid Ilhaan Cumar ayaa qaaday talaabo ka dhan ah dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan waxayna sidoo kale ku eedeysay dilkii la naxariistay loo geystay wariye Jamaal Khashoggi xukuumadda Soomaaliya iyo ganacsatada Muqdisho ayaa guddi u saaray xakameynta cudurka safmarka COVID-19 oo maalmihii la soo dhaafay dad badan ugu dhinteen magaalada Muqdisho faafayn dheeraad ayaa ka soo baxay dilka dhac magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan weerar dhaliya khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud qodobadaas iyo qodobo kale ayaan daawadayaal warkeena ku soo qaadan doona haddii ay tahay markii kuugu horreysay aad soo booqato fadlan channelka ha iloobin inaad tira subscribe asxaabtaadana aad la wadaagto channelka waxaa ka reeban inaad idiin soo baahino xogaan dhamaystirnayn oo dadka iyo dalka Soomaaliya dib u dhac u keeni kara ku soo dhawaada daawadayaal warkii oo fidsan xukuumadda Soomaaliya iyo ganacsatada Muqdisho ayaa guddi u saaray xakameynta cudurka safmarka COVID-19 oo maalmihii la soo dhaafay dad badan ugu dhinteen magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo kulan la qaatay ganacsatada Soomaaliyeed ayaa kala hadlay in ay kaalintooda ka qaataan xakameyntii la tacaalida cudurka COVID-19 ee dalka markale ku soo laba kacdeeyay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Foosiye Abikar Nuur ayaa warbixin dheer ka siisay ganacsatada xaaladaha cudurka COVID-19 iyadoo sheegtay in xaalad halis ah uu dalka ku jiro qaar ka mid ah ganacsatada kulanka ka qayb gashay ayaa ballan qaaday inay kaalintooda ka qaadan doonaan xakameyntii la tacaalida cudurka COVID-19 ee dalka markale ku soo laba kacleeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo ganacsatada Muqdisho ayaa ku heshiiyay inay sameeyaan guddi ka kooban 12 ruux oo ah 4 uu magacaabay ra'iisul wasaaraha iyo 8 xubnood oo laga soo xulay ganacsatada kuwaas oo ka qayb qaadan doona dadaalada loogu jiro xakameynta iyo la tacaalida cudurka COVID-19 ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ugu baaqay ganacsatada gobolka Banaadir in dadaalka kaalintooda ka qaataan isla markaana bulshada Soomaaliyeed ay ka caawiyaan sidii iskaga xakameyn lahaayeen cudurka COVID-19 todobaadyadii la soo dhaafay ayaa waxaa kordhay dadka u dhimanaya iyo kuwa uu soo ridinayo cudurka COVID-19 guud ahaan dalka waxaana wasaaradda caafimaadka ay shaacisay in ilaa iyo hadda ay diiwaan gelisay 7518 ruux maamulka Puntland iyo Jubbaland ayaa markale sharti adag ku xiray ka qaybgalka shirku iclaan madaxweyne Farmaajo maxay tahay sababta markale Jubbaland iyo Puntland ay u qaadaceen inay ka qaybgalaan shirka lagu hadlay arrimaha doorashooyinka Marunba in Puntland iyo Jubbaland ay ka baqayaan in ay qabato madaxtooyada Soomaaliya maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa waxay ka hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo shirka uu ku dhawaaqay madaxweynaha uu waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in walaac laga muujinayo in madaxweynaha uu muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu markasta soo saarayo qoraalo carqaladeynayo tallaabooyinka dadaalada lagu xalinayo arrimaha doorashooyinka iyo geedi socodka dalka sidoo kale Puntland ayaa sheegtay inay u aragto dadaalada ay wadaan ra'iisul wasaare Rooble iyo midowga musharaxiinta kuwa u gogol xaaraya jawi ay ku qabsoomi karaan shirarka lagu wado isla markaana looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee dhawaan la filayo inay ka dhacaan magaalada Muqdisho sidoo kale Puntland ayaa shaacisay in markasta diyaar u tahay ka qaybgalka shirarka xal loogu raadinayo qabsoomida doorasho heshiis lagu yahay oo ku qotanta heshiiskii 17 September 2020 la gaaray ugu dambeyn maamulka Puntland ayaa markale shuruud ku xirtay ka qaybgalka shirka uu ku dhawaaqay madaxweynaha uu muddaxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo oo dalbatay in shirka lagu qabto meel amni ah isla markaana la isku haleyn karo dhinaca kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay inuu dhiirigelinayo dadaalada uu wado ra'iisul wasaaraha waqtigan la siiyo wada hadallada u dhaxeeya ra'iisul wasaare Rooble iyo midowga musharaxiinta qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland ayuu ku sheegay inuu diyaar u yahay ka qaybgalka shirka ha yeeshee ay muhiim tahay
in meel amnigeeda lagu kalsoon yahay lagu qabto shirka. Jubbaland waxay dhiirigelinaysaa qabtaan in la tamataabiyo waqtina la siiyo wadahadalada u dhexeeya ra-iisul wasaare Roble iyo midowga musharaxiinta. waxay sidoo kale diyaar u tahay ka qaybgalka shirka ka dhacaya meel amnigeeda lagu kalsoon yahay. gundhigiisuna heshiiskii 17 September ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxweynaha Jubbaland. maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa dhowr jeer ka baaqday shir uu ku dhawaaqay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay labadaasi maamul inay carqalad ku yihiin inay dhacaan doorashooyinka, halka Puntland iyo Jubbaland ay dhankooda madaxda dowladda ku eedeeyeen inay hortaagan yihiin inay dhacdo doorasho loo dhan yahay. Ilhaan Cumar ayaa qaaday tallaabo ka dhan ah dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, waxayna sidoo kale ku eedeysay dilkii Allah u naxariistay loo geystay wariye Jamaal Khashoggi. Ilhaan Cumar oo Minnesota ku matasha Koongareeska Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday hindisa sharciyeed ay ku doonayso in dhaxal sugaha Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan lagu soo rogo cunaqabateen. warbixin toddobaadkii hore uu baahiyay xafiiska agaasimaha sirdoonka qaranka Mareykanka ayaa lagu sheegay in bin Salmaan uu amray dilkii wariye Jamaal Khashoggi oo si arxan darraha ugu dhintay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. tallaabada ay qaaday Ilhaan ayaa ka horkeeni karta afayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi iyo xitaa madaxweyne Joe Biden oo labaduba ka gaabsaday in ay tallaabo adag ka qaadaan Maxamed bin Salmaan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa meesha ka saartay in Maxamed bin Salmaan loo ciqaabi doono dilkii Khashoggi, waxaase ay sheegtay inay ka shaqeyn doonaan sidii dib loogu wajihi lahaa xiriirka Washington iyo Riyadh. Ilhaan ayaa qoraal ay soo dhigtay barta Twitter-ka ku sheegtay in hindis sharciyeedka uu tijaabo u yahay dareenka bini'aadanimo ee Mareykanka. haddii Mareykanka uu si dhab ah u taageero xorriyadda hadalka, dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha, ma jirto sabab aan cunaqabateen loo saarin Maxamed bin Salmaan oo ay sirdoonku sheegeen inuu ogolaaday dilka wariye Jamaal Khashoggi, ayay tiri Ilhaan Cumar. dowladda ay ka mid tahay Turkiga ayaa Maxamed bin Salmaan ku eedeysay inuu ka dambeeyay dilkii wariye Jamaal Khashoggi oo lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaysa dil ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. rag la sheegay inay ku hubeysnaayeen toorey ama mindi ayaa waxa ay xalay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ku dileen wiil dhalinyaro ahaa oo ka mid ahaa dhalinyarada ku nool magaaladaasi. wiilka oo lagu magacaabi jiray Shakuur Maxamed Bayle ayaa dilkiisa waxa uu ka dhacay xaafadda Xawataako, gaar ahaan laanta Dhagax Jibis ee magaalada Beledweyne, waxaana la sheegay in rag watay mooto bajaaj oo doonayay inay moobeel ka dhacaan ay dileen. goobjoogyaal ayaa waxay sheegeen in raggii dilka ka dambeeyay ay goobta ka baxsadeen dilka kadib. laamaha amniga magaalada Beledweyne ayaa dilkaasi kadib waxa ay sameeyeen howlgallo ay ku baadi goobayeen dadkii ka dambeeyay dilka, ha yeeshee kuma guuleysan inay gacanta kusoo dhigaan. magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa bilihii lasoo dhaafay amnigeedu waxa uu ahaa mid aan wanaagsaneyn, waxaana lagu dilay gudoomiye xaafadeedyo iyo askar. dilkaasi oo mas-uuliyiintiisu ay sheegteen dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab. weerar dhaliya khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. maleeshiyaad hubeysan ayaa waxaa la sheegay inay gaari ku rasaaseeyeen deegaanka Miracoodley oo hoostaga magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac. gaariga la rasaaseeyay ayaa sida la sheegay waday jaad ama qaad, waxaana goobjoogyaal ay sheegeen in weerarka ay ku dhinteen 2 ruux, mid kalena uu ku dhaawacmay. wararka qaar ayaa sheegay in falkan uu la xiriiray aanooyin qabiil oo bilihii lasoo dhaafay ka taagnaa deegaano hoostaga magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, iyadoo saaka xiisad ka dhalatay dilkaasi ay ka taagan tahay halkaasi. 2 sano ee lasoo dhaafay ay waxaa deegaanada Galmudug kusoo batay dilalka la xiriira aanooyinka qabiil, iyadoo oo qaarkood dagaal beeleedyo dhacay xal laga gaaray, halka kuwo kalena aan weli lagu guuleysan xalintooda. daawada haddii ay tahay markii kugu horreysay oo soo boqoto fadlan channelka haylow inaad tira subscribe asxaabtana la wadaagto. wixii tala iyo tusaale waxaad inagu reebtaa qaybta hoose ee commentiga.